سورة الماعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت إيغا ورن الذي كي يكذب بيننا بالدين abaalmarinta beeninaaye. abaalmarinta dadka la abaalmarinayo maalinta qiyaamada la abaalmarinayo beeninayey. addiin waa jazaaga. fadaalika kaasi alladii kii weeye yaducu lyatiima, yacni markaa daafacayay oo riixayey oo si dhible u riixayey. yani yadfacu bicunfin alyatiima, agoonka jinsiga agoon la yidhaahdo ayuu si dhib leh yacni u riixaya. walaa yaxudu ma boorinaayo calaa طacaami اlmiskiin, jinsiga miskiin la yidhaahdo quudinta la quudinayana boorin maayo. oo in masaakiinta wax la siiyo iska daa inuu wax siiyee ma boorinayo ma tirtirsinayo. fawaylun halaag ama cadaab lilmusalliina kuwa tukanaya ha u sugnaado. aladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim saahuun, salaadooda ka moogoon oo haafil ka ah, oo bimacnaa salaaddii dayacayo gooray soo baxdiiyo gooray gashay toonna ma oga. aladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna dadka istusaaya, oo haddayba is yidhaahdaan salaad la kaalaya ama khayr la kaalaya istus bay u samaynayaan, ilaahay dartii kama aha. wayamnacuuna waxay diidayaan oo dadka u diidayaan almaacuuna, yacni marka adeegyada loo baahan yahay. maacuunku waa shayga la caariyayste ee lagu intifaacayo, oo shay kasta oo daatadiisu baaqi noqonayso laftiisu baaqi noqonayo oo lagu intifaacayo waxaa la odhanayaa maacuun ayaa la odhanaya. suuraddan suuratu lmaacuun waa suura makiya weeye. waxaana markaa ilaahay suuraddan kaga warramayaa gaalada iyo ficillada xunxun ay la imanayaan oo dunuubta waaweyn ay samaynayaan, iyo goodi loogu goodinaayo cadaab. waxaa lagu bilaabay bisimka dabadii, ara'ayta aladii yukadibu biddiin. yacnii inay abaalmarinta ama qiyaamada beeninayaan ayaa la sheegay. markaa bal kaa ka warran baa la yidhi. markaasaa la sii caddeeyo waxaa la yidhi fadalika wuxuu allah yidhi fadalika aladii yaducu lyatiim. oo kaannahu la leeyahay haddaanad garanaynin waa laguu sheegayaaye waa ka agoonta marka waxa weeye dadka agoonta ah yacni dhibaataynaya oo daafacaya oo si dhib leh yacni u daafacaya u riixaya. dacaaga waxaa la yidhaahdaa daca yaducu, addafcu bicunfin, waa riixista si dhib leh cid loo riixo ayaa la yidhahdaa. iska daa inuu tabantaabiyo oo wax taree yacni si dhiblu u daafacayaa oo u riixayaa. raxmad baynay mudan yihiin, in loo naxariisto oo loo dhimriyo ayay mudan yihiin. agoonna waxaa la yidhaahdaa ka aabbihii dhinto qaangaadhna aan ahayn. hadduu qaangaadh yahay agoon ma aha. waa inaanu qaangaadh ahayn uuna aabbihii dhintaa. hal midna loogama jeedee jinsi baa laga tilmaamaya, oo waa jinsiga agoon oo dhan baa laga tilmaamaya, laba ha noqdo ama dhadig ha noqdo. waxaa kaloo lagu tilmaamay kaa abaalmarinta beeninaya inuu yahay masaakiinta baahan midaan boorinayn oo tirtirsinayn in wax la siiyo. walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin. hal miskiinna looma jeedee
jinsiga miskiin la yidhaahdo o dhan baa laga tilmaamaya ee mid gaara lagama tilmaamayo o loogama jeedo marka ciddii masaakiinta iyo fuqarada ahayd ee dhibaataysnayd yagana in wax la siiyo boorin maayo waxaa laynoo tilmaamayaa xagga ilaahay iyo xagga khalqigiisaba inuu ku xun yahay xagga ilaahay waa ku xun yaho waa mukadib oo iimaankii lama imanoo waa beeniye xagga khalqigiisana waa ku xun yahayoo ciddii taagta darrayd ama dacafada ahayd ee raxmadda mudnayd u naxariisan maayo waa dhibaataynaya oo dhibtiisa ka haysan maayo mar labaadkana yacni waxba ku tari maayo kaannahu laynoo tilmaamayo calaamad inay u tahay ficillada xunxun ee caynkaasi takdiibka iyo beeninta inay markaa calaamad u tahay wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegay cidda tukanaysa haddana salaaddii aan ilaahay dartii u samaynaynin ee istusnimo ula imanaysa salaaddiina ka kaafil noqonaysoo dayacaysaa yacni in halaag yacni u sugnaaday fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun yacnii cidda tukanaysa ee weylka ama cadaabka ama halaaggu u sugnaaday waxay noqonaysaa cidda sifada soo socota leh ciddaasay noqonaysa waxaa markaa macnuhu ku caddaanaya hadalka ka dambeeya marka la akhriyo waxay culammadu yidhaahdaan hadal wada socda oo isku xidhan in la kala barhgooyo yacni macnihii uu isbeddelayo haddii inta hore keliya la goosto inta dambe laga tago waa inaan taas la samayn ya mid baa waxaa la yidhi yacni markaa lunsan ayaa waxaa lagu yidhi war salaadda tuko ya markaasuu salaadda maxaan u tukanayaa sababta markaysagaa waciidka iyo goodiga loo sheegay cadaabka loo sheegay cidda tukata oo ilaahay uu yidhi fawaylu lilmusalliin markaasana inta dambe akhri inta hore igu filan buu yidhi inta dambe xaajo uma qaba buuhi inta hore ayaa igu filan buuhi oo waxa ku sugan buu yidhi yacni markaa daliil cad oo tilmaamaya in waxa weeye salaadda markaa in cadaab lagu gelayo hadalka noocaasi waa hadal kufri ah hadal kufri ah oo gaalnimo ah weeye salaadda cadaab lagu geli maayo laakiin sifada la socota weeye waxa cadaabka lagu mudanaya aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun taas weeye laakiin daatada salaadoo siday tahay loola yimaado daahiran wa baatinan iyadu waa mid rabbi loogu dhowaanayo cadaabna lagaga badbaadayo ya xataa mid baaba gabay ka dhigay yacni dadka waxay doonaan iskaga hadlaa muxuu yihi daci almasaajida lilcubbaadi taskunuha wadaci laxaanati alkhamaari yasqiina maa qaala rabbuka waylun lilulaa sakiruu wainamaa qaala waylun lilmusalliina wuxuu yidhi masaajidda iska daa dadka cubbaadii ha iska deganaadaanoo ha joogaan ya innaga meesha khamriga lagu cabbayna gee buuri waa mid carbeed oo gabyayo oo dee allakood kuwaynu idhaahno kale ah allakood wey daci almasaajida lilcubbaadi taskunaha ya yacni waxaad ina qabadsiisaa buu yidhi yacni markaa bal dukaanka khamriga iyo lagu iibiyo bal halkaa ina qabadsii buuri hayna waraabiye maa qaala rabbuka waylun lilulaa sakiru ilaahay ma odhan yacni waxa cadaab iyo halaag u sugnaaday kuwa sakhraamay wainamaa qaala waylun lilmusalliina waylun lilmusalliin uu yidhi laakiin ma odhan waylun lilulaa sakiru waxaas waa baail wey baail wey waxaas waylun lilmusalliina oo iطlaaqan ilaahay ma odhan ee wuxuu idhi fawaylun lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun sifada markaa ka dambaysa ayaa caddaynaysa muraadka looga jeedo marka hadalkii isku xidhnaa haddii la kala jaro oo in la goosto
dee waxay noqonaysaa macno faasidaa ka soo bixi karaa oo aan loo jeedin ya macnihiina wuxuu ku caddaanayaa marka la ysku daro ayuu ku caddaanaya oo la raaciyo aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun marka saa lagu daro ayaa macnuhu caddaanaya oo waadix noqonaya marka cidda loo goodiyayaa waa ciddaa salaaddii dayacday waa ciddaa salaaddii istusnimada kula imanaysa oo xagga daahirka iyo xagga markaa baatinkee qarsoon mid walba xumaan bay la yimaadeen baatinkii waa xumaado ikhlaaskii baa maqan istusnimaa jirta haddii waxa weeye ilaahay dartii aan looga jeedin ee cid la ysku tusaayo oo la doonayo derajo iyo mansilo iyo sharaf in lagaga helo dee waxay noqonaysaa in camalkaasi uu marduud yahay aan la aqbalay camalkaas waa midaan la aqbalayn wey haddii waxa weeye salaaddii la dayaco laga tagana dee waa dembi weey waxaa laga soo naqliyey bacdu salaf inay yidhaahdeen alxamdu lilaahi aladii qaala aladiina hum can salaatihim saahuun walam yaqul aladiina hum fii salaatihim saahuun waxaa mahadle buu idhi ilaaha yidhi aladiina hum can salaatihim saahuun oo can yani markaa waxaa geliyey oo aan odrhanin aladiina hum fii salaatihim saahuun fii iyo can baa kala duwantay macnaheedu hadda bal u fiirso marka salaaddii bay ka sahwiyayaan baa la yidhi oo ka kaafil noqonayaanoo waa dayacayaanoo salaaddii lama imanayaan wakhtigeedii waa tegsiinayaan salaaddiiba waa ka sahwiyeen yacni mabay samaynin xilligeedii sidii buu ku baxayaa ya waana markaa ihmaal ma aha markaa nisyaan iyo ilowshiye ku soo darriyaya iyagoo salaaddii ku dadaalaya ya ee waa mid salaaddii ay dayaceen oo xaalayn waayeen ihmaal bay ku sameeyeen markaasay dabeedna ay sidii waxay ilaaween oo kale ayay ka dhigeen inay xasuustaanba ma doonayaan salaaddii waa dayaceen laakiin fii salaatihim saahuun haddii la odhan lahaa kuwa salaadda gudahooda sahwigu kaga dhaco ayaa goodigu ku saabsanaan lahaa ciqaabka loogu goodiyaya dee taana cidi kama badbaadi karto in salaadda gudaheeda lagu sahwiyo ila fiidaa gudaha faa'iidaynaysay ya cidima badbaadeen laakiin can baa la geliyo waxaa laga tilmaamayaa salaaddii intaan lala imanin in laga sahwiyaayo oo laga kaafil noqonayo salaaddii la ilaawayo aan la xaalaynaynoo laga tegayo yani saas yadaa wey istusnimada in lala yimaadaa waa dembi kabaa'ira oo weyn waxaanu nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam inay istusnimadu tahay shirki yani nooc shirki ah inay tahay oo shirku lasqar oo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku tilmaamay nooc gaalnimo oo ka weyn ka yar inay tahay waa wadaajin ka waabsanta weyn bimacnaa ka yar riyaa baa la yidhaahdaa waa istusnimo dadkaa derajo iyo mansilo lagaga doonayaa camal aakhiro loo samaynaayo oo rabbi in loogu dhowaado in looga jeedo ay ahayd ayaa markaa dadkii mansilo iyo sharaf lagaga doonaya taasaa waxaa la yidhaha riyaa taasaa la yidhahdaa akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku اlasqar nebigu wuxuu uhi salى اllahu alayh wasalam waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay shirkiga kiisa yar oo bimacnaa ka kale ka yar sidiisa uma yareen qaaluu wama shirku اlasqar shirku lasqarku waa maxay qaala alriyaa waa istusnimada nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam taasaa waxay tahay ashirku اlasqar marka cidda looga baqayaa waa dadka saalixiintae wanaagsan baa looga baqaya oo si aynay dhaadayn baa shirkulasqarkii u soo geli karaa oo riyaagii ugu iman karaa hadduu camalka laftiisa qofku uga jeedo marka horeba salaadduu tukanaayo dadku ha kugu ammaanaan muraadkiisu ay tahay kaasi waa riyaa'u lmunaafiqiin waa dadka munaafiqiinta riyaagoodii weeyi
waayo munaafiqiinta riyaa waa lagu sifeeyey amaa hadduu camalka ilaahay dartii u samaynaayo laakiin markuu arkay cid uu qadarinayo o eegaysa uu camalkii xoogaa sii qurxiyo oo xagga sifada iyo dhaadhaadka iyo qurxinta ayaa riyaagu ka galaya istusku laakiin asalka camalka ilaahay ugu dhowow buu isleeyihi kaasi dadka mu'miniinta waa ka dhici karaa oo maaha riyaa lmunaafiqiin laakiin camalkaba markuu u samaynayo salaadda uu wuxuu u tukanayaaba aynay ahayn ilaahay aada ugu dhowaatid ee ay tahay dadku ha kugu ammaanaan taasi waa riyaa lmunaafiqiin waa munaafiqiinta riyaagoodii iyo istusnimadoodii weeye noocaasay noqonaysa wayamnacuuna almaacuun waxay diidayaan oo mancinayaan maacuunka culammada qaar waa cammimeen oo waxay yidhaahdaan infaaqa qofka saaran ilaa sekadii bay gudageliyeen oo waxay yidhaahdeen xataa sekadu maacuunkay soo geliyeen culammada qaarkoodna maacuunka waxay yidhaahdeen waa weelka iyo adeegga iyo milixda iyo waxyaalaha noocaas ah sida waxa weeye yacni markaa malqacadda marka ay ammaanaysiye ama sinxiga iyo ammaanaysiye ama waxa weeye markaa milix isii iyo waxyaalaha la midka marka ashyaada maacuunka diidmada la diidaayo mar waxay noqonaysaa yacni inay dembi noqoto marna waxay noqonaysaa inay fadiila baaqato oo in maacuunka la bixiyaa marna waa waajib oo waa waajibaysaa marna waxay noqonaysaa sunnay noqonaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim mararkay waajibayso waxaa ka mida siday culammadu sheegeen ruux haraadan oo nafti haraad hayo haraad daraaddii baa nafti haysaa ruux buu u yimi waar nafta ay haysa biyays biyihiina wuu hayaa biyaha inuu siiyaa si uu naftaa ugu qabto waajib bay ku tahay xaalkaasoo kale manciga uu diido waa ku dembaabaya wuxuu noqonayaa mid ku dembaabaya ayuu noqonaya bismi illaahi araxmaan araxiim ara'ayta aladii yukadibu biddiin iiga warran kii beeninaayey abaalmarinta beeninaaya abaalmarinta dadka la abaalmarinaayo waxay sameeyeen khayr iyo sharba aakhiro laga abaalmarinaayo beeninaayo fadaalika kaasi alladii kii weeye yaducu lyatiima yacni daafacayey oo riixayey yacni agoonka jinsiga agoon la yidhaahdo ayuu si dhib lehoo adayg leh u riixayey oo u daafacayey inuu wax siiyo iska daaye yacni waa dhibaataynaya waa riixayey walaa yaxuddu ma boorinayn calaa طacaami almiskiin jinsiga miskiin la yidhaahdo masaakiinta in la quudiyana ma tirtirsinaynoo ma boorinayn fawaylun lilmusalliin fawaylun halaag ama fawaylun cadaab lilmusalliina kuwa tukanaya ha u sugnaado yacni ducaa laga tilmaamaya laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa taxqiiq ahaan buu u dhacayaayo yacni khabarnimu isaga dhacaya aladiina kuwaasoo musalliintaa la sifaynaya aladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna ka sahwiyaayoo haafilka ka ahaayoo ka moogana bimacnaa salaaddii bay dayacayaanoo wakhtigeedii ay tegsiinayaan aladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna yacni istusaayey dadka wayamnacuuna diidayey almaacuuna maacuunkana diidaayey yacni waxyaalaha lagu intifaacayo ee dadku isweyddiistaan ayay mancinayeen oo diidayeen oo weelku ay ka mid yihiin culamada qaarna waaba ka sii guda ballaadhiyeenoo ilaa zakadii iyo waxyaalaha kale la bixiyaba waa soo geliyeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdi